moobilka habeenkii haddaad daawato moobilka daawato ilaa iyo wuxuu hurdada kaa duulinayaa 45 daqiiqadood hurdada dib u soo qaban maysid haddaad 9 maalan adoo sariirta saaran aad moobilka daawato ama 10 adoo sariirta saaran aad moobilka daawato wuxuu keenayaa inuu maskaxda uu ka duuliyo hurdada waxaa ogtihiin moobilku wuxuu leeyahay wax la yidhaha radiationkaasi waa nooc ka mid ah fallaadho baxaya hirar baxaya markay indhahaagu qaataan waxay ku dhacayaan maskaxduna waxay ku shaqaysaa electric bay ku shaqaysaa current bay ku shaqaysaa ilaahay uu inoo abuuray wadnaha iyo maskaxduba fariimahooda waxay ku diraan waa electric tusaale yar haddaan ku siiyo waxaad maqashaa dadka qaarkood markay wadnahoodu uu hoos u dhaco awooddiisu waxaad maqashaa baytari baa lagu rakibay marka baytarigaa lagu rakibo bay awooddiisu kor u soo kacaysaa macnaheedu waxa weeyaan baytarigii wadnaha ee rabbaaniga ahaa baa falaadhay dabadeedna mid maxaanku idhaha sanaaciya baa lagu caawinaya baytariguna da wuxuu ka samaysanya waa electric buu bixinayaa positive iyo negative marka baytarigaa marka lagu rakibo waxaa lagu odhanayaa baytarigaasi 5 sannadood buu kuu shaqaynayaa intaasoo sannadood buu kuu shaqaynayaa baa lagu odhanayaa marka maskaxduna waxay ku shaqaysaa electric bay fariimaha isugu dirtaa marka fariimahan maskaxdaada ku dhacaya baaraka allahu fiikum waxay hurdada ka duulinayaan maskaxda iyaga oo carshaynaya electricii maskaxda deedna waxaad u qaadanaysaa sidii ruux kafee cabay ama ruux haddii aan la yidhaahdo shokolaad cunay shokolaadkuna waa ka mid waxyaalaha munabbihaadka ee hurdada duuliya shaklaytka kaynu nidhaahno isna waa ka mid marka ka nasiixa ahaan ruuxu markuu sariirta tago yuu isticmaalin daawashada mobaylka ama internet ha noqoto ama facebook ha noqoto ama maxaanku dhaha kuwa kale dee la daawado ha noqoto waxaa kaloo kuula mid dee tv-ga in markaad seexanayso nusa saac ka hor waa inaad iska bakhtisaa waxa kan moobilka ku hadalkiisa waxoogaa isagu waa ka latifan yahay laakiin kaa hirarka aad indhaha ku dhufanayso ayaa mashkilad badan ku keenaya ruuxa marka xaaladahaasoo dhan waa inaad maskaxda ku haysaa qof waalan markaad aragto sababta keeni kartee maadiga marka hore waa inaad taqaan qofkii qaad ma cuno habeenkii wakhti fiican buu ka seexan jiray wax dhaqaaloo burburoo ku yimi ma jiro asbaabta aynu sheegnay oo dhan wuu ka caafimaad qabaa markaasaad go'aan qaadan kartaa inaad jihadii sixirka ula kacdo oo ciddii aqoon u leh markaa loola tago waxa kaloo ka mid ah ee asbaabta waalida ka mid ah asbaabta waalida keenta waxaa ka mid ah al-ikthaar min almunabbihaat al-ikthaar min almunabbihaat qof ama ruuxu haddii uu aada u isticmaalo hurda duuliyayaasha waxyaalaha hurdada duuliya hadduu aada u isticmaalo aakhirka waxay ku keentaa inay maskaxdu fadhiisan weydo munabbihaadka maxaan ka wadaa bunkaa ka mida bunka haddii qofku aada u isticmaalo ma seexanayo hurdaduu ka duulinaya waxaa ka mid ah waxyaalahan soodhaha leh kookaha iyo wixii la mida iyana hurdada way duuliyaan waxaa ka mid a qaadku hurdada wuu duuliyaa weliba qaadku wuxuu la sii dheer yahay sun aad iyo aad u halisabaa la socoto d d t baa lagu buufiyaa d d t-daasina waxay ta'hiir badan ku yeelataa xubnaha ugu muhiimsan jidhkeenna hadday beerka tahay hadday sanbabada tahay hadday kelyaha tahay hadday wadnaha tahay hadday maskaxda tahay 5taa xubnood ee muhiimka ah oo ay u dheer tahay qaybta dheefshiidka xiidmuhu isku maraa baxcaleentiisu marka uu qofku liqliqo dabadeedna calooshu waxay qaadaysaa calool istaag baa ku imanaya hadduu calool istaag yimaadana waxaa ka dhimanaya xiisihii cuntada ilan meeluu mariyo ma hayo xiidmihiina ma nuugi karayaan nafaqadii jidhka marka qaadku waxa weeyaan maadada imika ugu badan
ee dalkeenna waalida ku keena boqolkiiba 80 ama 90 haddaanay ahayn waalida dalkeennu waa qaadka weeye sababtuna waxa weeye suntaa ku jirta iyo saamaleelka habeenkii